markale hogaamiyaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa diidma qayaxan oo aan la laabasho lahayn kala hor yimid dadaal walba oo dalalka Finland iyo Sweden ay ku doonayaan in sida ugu dhaqsiyaha badan ay ugu biiraan isbahaysiga difaaca waqooyiga Atlantika. Erdogan ayaa si toos ah u diiday doonista iyo damaca ee dareenka huwan ee dalalkani ay ku doonayaan helitaanka dayr adag oo Ruushka ka dhiciya. wasaaradda arrimaha dibadda Sweden ayaa ku dhawaaqday in wakiilo sare oo ka socda labada xukuumadood ee Finland iyo Sweden inay si dhaqso ah ugu safri doonaan wadanka Turkiga si ay wada xaajood ugala galaan diidmada Ankara ee ah in dalalkani ay ka hor joogsanayso inay ku biiraan oo ay helaan xubinnimada isbahaysiga NATO. si kastaba ha ahaatee Erdogan ayaa sheegay in diblomaasiyiintu aysan ku dhiban imaatinka Turkiga si ay isugu dayaan inay Ankara ku qanciyaan inay ansixiyaan dalabkooda ku biiris ee NATO. ugu horeyn ma dhihi karno kuwa cunaqabataynta ku soo rogaya Turkiga si ay ugu biiraan NATO oo ah urur amni inta lagu jiro habkan ayuu Erdogan si toos ah warfidyanada ugu sheegay. labada dal ee waqooyiga Yurub ayaa si rasmi ah u xaqiijiyay inay raadsan doonaan xubinnimada NATO taasoo soo afjaraysa 10 sano oo ciidan la'aan ah. tallaabo taariikhi ah oo horseedaysa in ay ka hortagaan duulaan walba uga yimaada Ruushka oo haatan duulaan toos ah kula jira dalka Idriska iyo Ukraine. Turkiga ayaa toddobaadkii hore ku dhawaaqay inuu diidan yahay in labada dal ay ku biiraan NATO iyagoo ku eedeeyay inay taageeraan mintidiinta Kurdiyiinta oo Ankara ay u aragto argagixiso ayna ku guuldareysatay inay soo gacan geliso 10 qof oo looga shakisan yahay argagixisnimo. wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa dhawaan yiri wadamada taageera argagixisada waa inaysan xulafo la noqon NATO. wakaaladda wararka ee Anadolu ee wadanka Turkiga ayaa warisay waxa uu intaa ku daray in Turkiga uu ka dalbaday labada dal ee Finland iyo Sweden inay joojiyaan marka ugu horeysa taageerada kooxaha argagixisada ah ee qalqalka ku haya qarannimada iyo badqabka bulshada Turkiga. Erdogan waxa uu si toos u muujinayaa in dal walba oo isku daya inuu maalin hagardaamo iyo lugooyo Turkiga u horseedo inay adag tahay xilliga iyo xaaladda adag inay iyaguna gaashaan u noqdaan. Turkiga waa awood muuqata, waa cod weyn iyo kaalin wax ku oola ku leh jaangoynta masiirka isbahaysiga difaaca ee adduunka ugu sareeya haatan ee waqooyiga Atlantika ee NATO. Erdogan ayaa sida muuqata diidan dadaal walba oo wadamadan ilaa ay ka bedelayaan mowqifyadooda ku wajahan Ankara. maamulka madaxweyne Erdogan waxa uu aaminsan yahay in tani ay sabab u tahay kadib markii Ankara ay si toos ah u ogaatay inay wadamadan taageeraan dhaqdhaqaaqa argagixisada ka soo horjeeda Turkiga deganaanshihiisa. sidaas awgeed inta ay taageero iyo garab iyo sidoo kale gaashaan u yihiin cadawga annaga burburinteena ka shaqeynaya iyaguna si sahal ah uma heli doonaan xubinnimo ma ogolaan doona meelmarintooda codkeena ayaa ku xiran helitaankooda. sidaas awgeed ma laga yaabo hadda labada dal ee Sweden iyo Finland saraakiil sare oo diblomaasiyiin ah ayaa ka soo baxay labada caasimadood ee labadaasi wadan waxay ku wajahayn Ankara. waxaa lala hadlayaa Erdogan iyo maamulkiisa waxaa lagu qancinayaa qorshaha aqbalaadda ee taageerada wadamadani iyo in Turkiga aanu marnaba ka hor imaanin meelmarinta wadamadani. lama oga xaalka iyo sida xaaladdu ay isu bedeli doonto laakiin durba dhaqdhaqaaq adag oo culus ayaa socda. wax kasta ayaa la filan karaa. mar kale doc kale ayay sheekadu dabcan ka furantay Finland iyo Sweden. marka hore inta aysan labadan dal wehel iyo wadiiqo u marin helitaanka xubinnimada NATO waxay u baahan yihiin inay qanciyaan oo ay ku qanciyaan siyaasadooda ku wajahan kooxaha Turkiga uu la dagaalamayo iyadoo la ogyahay in wadamo badan oo Yurub ah inay taageero muuqato oo aan leexleexasho lahayn ay siiyaan dabcan kooxahani. sheekadu waxay u muuqataa inuu mar kale Turkiga dagaal diblomaasiyadeed oo qayaxan ugu adkaan doono wadamo badan oo Yurub ah oo xilli xaaladdu ay ku adkeed garabna uusan haysanin taageerada duniduna ay u muuqatay mid lagu waxyeeleynayo dadaalka iyo nidaamka Erdogan ee gudaha Turkiga. waxay qaar ka mid ah wadamada Yurub taageerayeen kooxaha Turkiga uu aqoonsan yahay argagixisada oo qaarkood ba laga yaabo in wadamadaasi ay gabaad siiyaan taas oo hadda Erdogan uu ku xujeynayo in shakhsiyaadka tobanaanka qof ka badan ee argagixisadaasi lagu tuhunsan yahay ee dalalkaasi jooga marka hore ay soo geliyaan gacanta maamulka Ankara. sidaas awgeedna inta ka horeysa aysan dhici doonin waan iyo gorgortan meelmarinta xubinnimada muhiimka ah ee maanta jaangoynaysa badqabka nabadda bulshada caalamka
ee waqooyiga Atlantika ee NATO.